بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو جوبا انستيتوت اوف بروفيشنالز يوتيوب channel كده وكورسات 4000 essential English words practice course وايد كورسان ku baranayna 4000 oo eray oo ah erayada Ingiriiska ee la isticmaalo waxaan ku saleysay buugga uu qoray Paul Nation waxay la socodsiinayaan Cabdisaaq Maxamed Cabdiya for speaking practice haddii aad rabto inaad practice ku samayso hadalka luqadda iyo wixii la mid ah la soo xiriir numberkaas fadlan subscribe saar channelkan like iyo share ku qabo erayada sida la socotaan luqad kasta marka la baranayo waxaa qofku qasaba inuu luqadda erayada yaqaan erayo waa inuu yaqaan laakiin erayada kaligood lama qaban karo haddaba buugga uu qoray qoraagan Paul Nation wuxuu ku diyaariyey ilaa 4 buug ilaa 5 buug meelahaas wuxuu ku diyaariyey 4000 oo eray oo uu bixiyo 4000 essential English words 4000 eray waxaa la dhexgeliyey mar waxaa lagu dhexgelinayaa mar horta English to English baa lagu fasirayaa kadibna ana Soomaali ku sii sharaxayo kadibna jumlad baa lagu gelinayaa examples baa lagu dhexgelinayaa haddana marka u dambayso waxaa lagu dhexgelin doonaa story ama sheeko short stories ayaa lagu dhexgelin doonaa erayada haddana marka u dambayso exercise ama layli baa lagu diri doonaa marka sidaas erayadii aad iyo aad baad u xasuusanaysaa marar badan ay maskaxda ku soo laabanayaan erayada marka waxaan samayn doonaa nambaraan u yeeli doonaa nambaradaas way taxnaan doonaan marka waxaan mar labaad duubay cashirkii koowaad sababtoo ah kii hore PDF aan ka duubay kan laakiin hadda waxaan ka dhigay waxa loo yaqaano waxaan ka dhigay qaab kale aan u diyaariyey waxaan kaloo sameeyay Soomaalina ku soo qoray erayga koowaad aan baranayno waxa weeyaan afraid waa cabsasho afraid waxa weeyaan waa cabsasho afraid waa cabsasho marka eraygu waa adjective grammar marka laga hadlayo erayadu kuwa waa adjective kuwa waa verbs kuwa waa nouns kuwa waa pronouns prepositions etc waxa iyo wax la marka kelimad kasta oo sheegayno waa sheegaynaa qaybta naxwaha ay gasho marka erayga koowaad waa afraid oo ah cabsasho ka Soomaali macnaha erayga macnihiisa af Soomaali waa ka cabsasho waana adjective when someone is afraid marka ruuxu uu cabsanayo they feel fear waxay dareemayaan cabsi they feel waa dareemid fear na waa cabsi they feel fear cabsi bay dareemayaan waa kana marka tusaale the woman haweeneydii was afraid of waxay ka cabsatay what she saw waxa ay aragtay ku fiirso marka afraid of erayga afraid wuxuu qaataa prepositions marka aad bay muhiim u tahay inaad fahansan tahay verbska iyo adjectiveska iyo prepositionada ay qaataan aad bay ku caawin doonaan ku hadalka luqadda marka was afraid of waxay ka cabsatay what she saw waxa aragtay saw waa see pastigeed erayga labaad aan baranayna waa agree waa ogolaansho ama ku raacid ama waafaqid marka erayga agree waa verb ficil weey hadaba verb uu yahay ama ficil yahay noun waa laga sameyn karaa waxa la dhihi karaa agreement heshiis hada agreement was signed heshiis baa sax marka agreement na waa agree oo verb ka ah nounkiisa ayaa waxa la dhahaa agree waa verb waa ficil nounkiisana waa agreement heshiis marka erayga agreement waa ogolaansho ama ku raacid ama waafaqid waa kale marka soo jumlo ku jiro ama macnihiis waa kale macnihi to agree is to say yes waa inaad ogolaato ama aad ku raacdo or to think the same way ama marka isku si wax u aragtaan ama u fikraysan to think marka u malaynayso ama u fikrayso the same way si isku mid qof kale iyo adiga isku si u fikra ama isku si wax u arko waa kale marka iyadoo lagu geliyo jumlad qofkan ayaa hadla wuxuu yiri the food is very good
the food is very good cuntada aad bay u fiican tahay in that restaurant maqaaxidaas b kii kale wuxuu yidhi I agree with you waan kugu raacsanahay I agree with you waan kugu raacsanahay marka ereyga agree waa kaas ereyga saddexaad aan baranayno waa angry angry macnaheedu waxa weeyaan xanaaqsan wey macnaheedu waa adjective waa sifo angry xanaaqsan waa sifo nounkeedana waa anga oo caraa nounkeedana waxa weeyaan anga oo caraa caradu marka waa noun laakiin angry waa adjective macnaheedu waxa weeyaan xanaaqsan waa kan marka when someone is angry ruux markuu xanaaqsan yahay they may want waxaa laga yaabaa inay rabaan to speak inay u hadlaan loudly kor si sare speak loudly kor u hadal way kor inay u qayliyaan or fight ama ay diriraan or fight ama ay diriraan dagaal sameeyaan marka angry xanaaqsan way angry waa xanaaqsan when someone is angry ruux markuu xanaaqsan yahay they may want to speak loudly waxaa laga yaabaa inay kor rabaan inay u hadlaan kor u qayliyaan speak loudly markuu qof kor u qaylinayo kor u hadlayo or fight ama ay diriraan waa kana markaa asagoo tusaale lagu geli she didn't do her homework shaqadeedii guri mayna samayn so sidaas daraaddeed her father is angry aabeed waa xanaaqsan haddaba gabadhii ayna samayn exercisekii aabeed waa xanaaqsan ereyga afraad ee baranayno kamid ah essential English words waxaa kamid ah arrive arrive waa imaansho gaadhid meesha aad u socotay ereygaas waxaa la arrive salaam to arrive is to get to place inaad meel tagto or reach some place meel aad gaadho marka ereyga arrive waa imaansho gaadhid meesha aad u socotay meesha aad socotay to arrive is to get to waa inaad gaadhaa some place meel or reach some place meel inaad gaadho salaam waa kana the bus always arrives basku markasta wuxuu imaadaa at the corner of my street jiirada wadadayda wadadan degana at the corner of my street jiirada wadada aan degana at 4 wuxuu yimaadaa 4 at 4 ayuu yimaadaa afarta ayuu yimaadaa halkaa waxaa kaga soo baxay halkaa waxaa kaga soo baxay in arrive ay tahay imaansho ama soo gaadhin markaad meel soo gaadho ereyga kale aan baranaynaa shanaad waxaa weeyaan attack waa weerarid macnihiisa attack waa weerarid macnaheedu waa verb waa ficil attack waa weerarid to attack is to try waa inaad isku daydo to fight inaad la dirirto or to hurt ama aad waxyeelayso someone ruux attack marka waa weerarid to attack is to try waa inaad isku daydo to fight inaad la dirirto or to hurt ama aad waxyeelayso someone ruux marka the man with the sword ninkii safety with sword waa safety attacked ayaa wuxuu weeraray the other man ninka kale first ugu horreynti kaasa hor weeraray the man with the sword ninkii safety watay attacked ayaa wuxuu weeraray the other man ninka kale first ugu horreyn ereyga lixaad barayna waxa weeyaan bottom bottom ama bottom sababta marka laga dhigaya bottom ina bottom waa salka ama meesha ugu hooseyso sanadooda the bottom is the lowest part waa qaybta ugu hooseyso the bottom of my shoe kabtayda meesha ugu hooseyso has a hole in it tuleel baa ku yaala has a hole in it tuleel ayaa ku yaala tuleel ayaa ku yaala marka erga bottom waa meesha ugu hooseyso shay ereyga toddobaad aan baranayna waxaa weeyaan clever clever fahmo badan ama caqli badan fahmo badan waa qof caqli badan ama fahmo badan clever clever waa lagu dhawaaday when someone is clever ruuxa markuu caqli badan yahay ama fahmo badan yahay they can solve
waxay xallin karaan solve waa xallin a hard puzzle xujo adag hard adag weeye puzzle waa xujo ama xalxiraale or a problem ama dhibaato ayay xallin karaan waxaan marka when someone is clever ruuxa markuu caqli badan yahay they can solve waxay xallin karaan a hard puzzle xujo adag hard adag weeye puzzle waa xujo or a problem bay xallin karaan waa kale marka tusaale the clever boy wiilkii caqliga badnaa ama fahmada badnaa thought of wuxuu ka soo fikiray a good idea fikrad fiican thought of wuxuu keenay ama ka soo fikiray a good idea fikrad fiican ereyga sideedaad aan barayna waxaa weeyaan cruel waxaa la dhahaa naxariis daran qof aan naxariis lahayn waxaana when someone is cruel ruuxa markuu naxariis daran yahay they do bad things waxay sameynayaan waxyaaba xunxun ay ku sameynayaan to hurt others say dad kale u dhibaateeyaan waa kale waxaa the cruel man ninkii naxariista darnaa yelled wuxuu ku qayliyey at his sister walaashii ayuu ku qayliyey walaashii ereyga sagaalaad ee cashirkan waxaa weeyaan finally ugu dambeyn waa adverb marka adverb wey adverb waxaa la dhahaa wuxuu sheegayaa ficilka qaabka u dhaha sheegaya adverb waa xaala waxaa la dhahaa wuxuu yidhi if something happens haddii uu shay dhaco finally ugu dambeynta hadduu dhaco waa ka ereyga rabnay it happens wuxuu dhacay after a long time waqti dheer kadib or at the end ama dhammaadkii u dhacay if something happens shay hadduu dhaco finally ugu dambeyntii it happens wuxuu dhacay after a long time waqti dheer ka bacdi or at the end ama ugu dambeyntii waa kala ereyga he finally crossed marka example he finally crossed isagu wuxuu gudbay isagu finally crossed ugu dambeyntii wuxuu gudbay the finish line bardhamaadka after 5 hours of running kadib orod 5 saacadood after 5 hours of running kadib 5 saacadood orod after 5 hours of running ereyga kale aan barayna waxa weeyaan tobnaad hide oo ah ereyga ugu dambeeya cashirkeena hadda hide waa qarin hide waa qarin waana verb ficil verb qarin to hide is to try in la qariyo waa in la isku dayo not to let others inaad u ogolaan dad kale see you inay ku arkaan the other children caruurta kale will hide way isqarinayaan while you count marka adigu aad tirinayso to 100 ilaa 100 wayna isqariyaan marka ereyga hide waa qarin to hide is to try waa inaad isku daydo not to let others inaad u ogolaanin dadka kale see you inay ku arkaan ama inay wax arkaan the other children caruurta kale will hide way isqarinayaan while you count to 100 inta adigu aad tirinayso ilaa 100 daa cashirkeenan oo u bixi doono 10 erey 10 erey cashirka maanta halkaas ay ku leeyihiin laakiin bal hal mar aan kuu soo kormaro waxaa ereygood waa afraid oo ah cabsasho agree oo ah ogolaansho ama ku raacid angry oo xanaaq ah oo xanaaqsan arrive oo imaansho ah attack oo weerarid ah bottom oo salka ama meesha ugu hooseysa ah iyo clever oo ah qof caqli badan fahmo badan cruel oo ah qof naxariis daran waana adjective waa sifo finally ugu dambeyn oo adverb iyo hide oo ah qarin aad baad u mahadsantihiin fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar cashiradan gambaleerkana ku dhufo cashiradani waa kuwo taxana ah insha allahu tacaala maalin kasta 10 erey ayaan soo geli doonaa waana waqti yar oo 15 daqiiqo yar ayuu video soconayaa
marka fadlan waqtiga ka faa'iideyso intaad wax kala macno yani ku dhimanaysa. Ma assalaamu calaykum warahmatullahi